بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ودي السلام يا ولا لهنا كحرن سومالي كوكنا كلتشر انت بينو تهبي وناكسن انت مالتينا مال وناكسن كور كستا iyo goob kasta inuu joognaan Allah subhanahu wa ta'ala khayr been weydiisanayna inta ka bacdu waxaan leeyahay dhamaantiin walaalayaal oo Ramadaan Kariim ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ka faa'iideystahay naga dhigo Ilaahay idankiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku cibaadada ka aqbalahay naga dhigo Ilaahay idankiisa Ilaahay ku naarta ka xoreeyahay naga dhigo inta ka bacdu walaalayaal ma sha Allah barnaamijyadeena sideen uga soconay channelkeena Somali Cooking Culture waxa weeyaan hadda hal barnaamij oo Ramadaanta ugu talagalay baa jira annagoo maxay tahay dhowr channel ma sha Allah kaasoo rabnaa inay ummaddu ka faa'iideysato annagana uu sidii noogu sii socdo YouTube-ka iyagu waayo waxa weeyaan haddii aad wax samaynayso kulliba inaad wax ummaddu ka faa'iido samayso oo isleedahay aduguna adduunyo aakhiraba khayr baad ka helaysaa ummaduna adduunyo khayr aakhiraba khayr bay ka helaysaa wanaagsan barnaamijkeenan hadda inagu soo kordhayno samaynaynaa wax ka qayb qaadanaya imka ilaa hadda 4 YouTuber laakiin se waanu rajeynaa insha Allah ta'ala inay ka bataan oo walaalo ka badan ku soo biiraan barnaamijkan waxa weeyaan challenge ah cuntada waliba Soomaalida cuntadaas marka waa inay noqotaa 3 xaaladood waa inay yeelataa aanu samaynayna hadii la haydmo koow waa horta inay tahay cunto jaban oo aan ahayn qaali oo yaani dadka qaarintiisa u daawadaan aan oran karin ma heli kara cuntadan way ku qaali ma awoodo maya taa uma aan soo bixin inaanu yaani ummadda intoo la soo wax la tuso hadana wixii ay awood waayaan talabaad waa in cuntada cunto caafimaad tahay xataa hadaanay 100% waxa ka ay ku wada samaysantahay aan healthy ahayn waa inay wax caafimaad ah oo qofku wax ka faa'iideeyo ay cuntada ku jiraan ta saddexaad waa in cuntada meel kasta laga heli karaa cunto Ameerikun laga heli karo ama Asian laga heli karo oo Afrika laga heli karin oo qaaradaha kale laga heli karin maya taana maaha waa cunto inanta geed hoostiisa joogta ee Soomaaliyeed ay karsan karaysa biidnillah ta'ala insha Allah ta'ala aananu rajeynayna in ka faa'iidi doontaan channelada ka qayb galaya hadaba hadaan idin sheego xagga hoosena waan idin ku soo qoriyaa fadlan booqda wadad ma sha Allah waxaan ku walaalihiina oo ummadda wax soo kordhinaya channelada ka soo qayb galaya koow waxa weeyaan isma channel waa booqan doontaan insha Allah waxa kale oo ka qayb galaya Samira channel waxa kale oo ka qayb galaya Xamdi Janna Cosmetic iyo aniga Somali Cooking Culture afarta channel ba insha Allah imka socda hadii ilaahaydmo laakiin waanu rajeynaa walaalo kale inay ka soo qayb galaan in la sii ballaariyo in waxa jira habla dhalinyara ama hablo hooyooyinaba oo ama iyagoo yaryar qurbaha la keenay ama qurbahaba ku dhasho ku guriyeystay raba dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalinimo iyo cuntadoodii inay haystaan bisha Ramadaan iyo mar walba laakiin si aan yaani ka fog maanta oo aan samaysan karin ama aan garanayno aqoon ba u lahayn waxa jira waxyaabo Soomaalida laftooda xataa ay ku kala duwan yihiin oo yaani dadkan ay aqoon u leeyihiin dadkan kalena aan aqoon u lahayn marka insha Allah ta'ala qof walba inuu ka faa'iideysan barnaamijkan ugu talagalay qof kasto Soomaaliya ama wadankii ha joogo ama wadanka dibadiisa ha joogo insha Allah ta'ala hadda maanta waxa horeynaysa waa suxuur waxa number noqdo samaysay isma channel way soo galisay ma sha Allah walaashin hala booqdo soona eega insha Allah Soomaaliduna waxa ku mahmahda dabeel waliba dheeriga dhanbay ka taqaana dabeel yaani waa gabadh baa laga wadaa inaan waliba dheeriga sibay u karin taqaana waxa kale Soomaalidu ku mahmahda geel jira geel waan wada jira waan kala jira wax weyn camaltii wixii la wada leeyahay la wada haysto la wada garanayo ayuu hadana qof walba gaar si wax u si ilaaliya moogtay xataa wax karinta lafteeda iman karta waxa laga yaabaa qofkana iyadoo wixii la wada karinayo suxuur oo suxuurta laga yaabaa si u wada samaysantay ayaa qofkana si u naashnaashiya qofkana si u naashnaashiya qofkana suxuurtiisa si u wadanaya qofkana si u wadanaya waxaana laga wadaa imka geela ku iyo dadkii la wada jooga inuu hadana qof walba hashiisa si eegayo leeyahay hashaadi talo ma daaqday talo hashaadi maanta maxay ku sugan tahay talo hashaadi ma luntay yaani waa sida marka waa lagu kala duwan yahay insha Allah ta'ala imkana inakeena ka jada ما شاء الله ولا ليال وينك دكسجين بين أنمي وحن صارينا قمنتجي وحن كل شوية مرة ورا إن يرو سليد وسليد زيتون الدكسجي يوم مرن قياستي إلا لبقعة كل شوية مرة كان دبيتنا وحسمينا يا بروش كاسن ساو هو ذكرتين يا دكسجي كنت إلا حريرة وأيو حنديدة يا إني هلو تدكسجي أيجا جارجاران أيجا قبصة قمنتيدو
marka ma sha Allah saamarka soo tiraahdo haddaan wada gaarsiiyey qamandida digsiga guntiisa saliid wada gaarsiiyey waxaan halkan ku haystaa 2 koob oo qamandiya iyo 1 koob oo bariis marka anigu bariiska inta badan ma sha Allah kuma darsado laakiin isma channel ayaa igu soo challenge garaysay marka waa inaan iska ridaa marka ma sha Allah waxa weeyaan 2 koob oo qamandiya iyo 1 koob oo bariis oo basmati qamandidu marka waa qamandi ma sha Allah xoogaa yara jajaban وجلحسنت 15 دقيقة لوgu talagalay inay ku bislaato 3 koob baan markaa ku shubanaya meesha 3 koob markaan ku shubto ka bacdina waxaan sameynayaa biyaheedan ku soo darsanaya biyaha baan hadda ku darayaa marka 3 koob ee 2 qamandida tahay hal bariiska yahay halkii koob wuxuu qaadanayaa 2 koob oo biyo ah marka hadda imka halka 4 koob biyo kulul baan ku haystaa biyahana waan soo kululeeyay la soco 4 koob biyo baan ku daray 2 koob biyo bay hadaan ku soo darayaa labadii koob kale biyahana waan iga ku soo daray 6 koob markaan saa ugu daro daboolkaan xidhaya daboolka markaan xidho dabkaan ku shidayaa dabka markaan ku shido dabka kagama dhigayo kor ma qaadayo dhexdhexaad baan dabka ka dhigayaa daboolkeedu waa ma sha Allah waan xidhay dabkeeda marka waxaynu ka dhigaynaa dhexdhexaad waayo dabka hadaad xoog ugu shido wuxuu sameeyaa qamandidii aan ku bislaan ayay markii biyo kulsanaysaa ka bacdina way gubanaysaa 15 daqiiqo iyo dab dhexdhexaad hadii la hadma ayaan saaraya wala shoolada qaybta weyn ma isticmaalayo kuwa dhexdhexaadka baan isticmaalaya ma sha Allah taadka u daciifkan isticmaalmayo ta weyn isticmaalmayo dabka dhexdhexaadka baan isticmaalaya way inoo soo karaysaa 15 daqiiqo meelaha hadii la hadmo waynu sugaynaa marka 15 daqiiqo waxaad ka bilaabanaysaa markay karka bilowdo hadii inta biyo qabow aad ku darto dabeetana aad 15 daqiiqo inta biyo wadiirayaanba marka hore markay karka bilaabato 15 daqiiqo tirso ma sha Allah walaalayaal waa taa qamadideeni wax yar ba hadda u haray waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa hal qaado ah cusbo ama milix kolba saadata waxaan ku darayaa qaado yar cusbo ah raali noqdo halka qorga dusheeda bay ku dhacday laakiin waa laga reebooyaa ma sha Allah qaadada cusbada baan hadda saa ugu soo wada walaaqaya inta badan cuntooyinkan baalka lihi waxay cusbada ku fiican tahay marka u dambeysay soo bislaanaysa aad ku darto ta kale digsiga saliid markaan ka mariyay digsiga guntiisa wax allaala wax qabsanaya ma jiro haddaan saa uga gadiyo waxaad moodaa yacni inaan waxba lagu karinba haddii kala qamandida way kaaga dhigaysaa iyo soorti iyo waxyaabaha sultaanad saliid yar gunteeda iska sii marin marka digsiga marka hore gunteeda saliid yar iska sii mariya Allah idin barakeeyo waxaanan u soo inta badan saa barnaamijyada ugu soo raacinaa waxa jira dhalinyarada saan idin sheegay hablaha dhalinyarada ee ama inba guurdoonka ama guursadayba wadankii waxba ka aqoon ama hadday xataa wadankii joogaan dee aan maartay iyagu waxan u lahayn khibrad badan inay ka faa'iideystaan waayo hooyo Soomaaliyeed meel kasta joogtaba waa hooyo Soomaaliyeed dhaqankuna waa hal wada leeyahay insha Allah taala marka intuu inoo bislaanaya saaseen ku sugeynaa ilaa dhamaadka ma sha Allah wata 6 koob biyaha iyo 3 koob ee labana qamandida ahayd midina ahaa maxay haytay bariiska waa kuwa isugu soo keen bislaaday waxay noqdeen maxaa ka galay imka hadda waan soo cajiimayaa sidii Soomaaliya loo cajiimi jiray qamandida ma sha Allah saasaan soo cajiimaya ka bacdina weelkan inoogu soo guraya ma sha Allah tabaaraka raxmaan ما شاء الله ولا ليال واتا قمنديني aan ka soo dajiyay xeedadeeni baan inoogu soo riday fandaalkeenina waan inoogu soo dhixriday caanaha ciirtaha ma garoorka waa kuwa dhinaca ka yaala walow aanan koobkii nusbeedka ahaa inoogu soo shubin oo nusbeedku way ka muuqan waayeen marka jeekaas aan inoogu soo shubay nusbeedkina kama ag foga waa kasna dhinaca yaala qofkii nusbeed ciir raba waa loo shubayaa saliid saytuunta ma sha Allah inoo agtaala ama olive oil qablo basaad u taqaano malabkiiba inoo ag yaala duqoskiiba inoo ag yaala duqoska cid garanaysa ma sha Allah cidaan garanayna waa geed waxaan ku wax lagu sooro ma sha Allah waa geed cuntada lagu cuno waxa weeyaan wuxuu ka sameeyay geeda adari ama xawaash burbur kolba saad u taqaano saliid ama flaxseed kolba saad u taqaano cusbo iyo robasbas orgona toon de ma sha Allah tabaaraka raxmaan la iskama qabta raashinka la mariyo haday hilib tahayna hilibka falfalka marka la kariyo saxanka la soo saara dusha saa looga mariya ma iska qabanaysid huuris iyo waxaas iyo ma eegaysid hada duqsaysato ma sha Allah
haddii raashinka cad tahayna iyadana dusha lagaga darsadaa kaalay arag iyadana maasha Allah tabaaraka raxmaan iskama qabaynaysid waa jamtaasun ku hayuun maasha Allah markaa wakaa isma channel ba aniga maasha Allah challenge-ka ii soo dhigtay waxa weeyaan waxay ku hadhay nimay ku hadhay hawle haysa Xamdi Janno Cosmetic iyo Umu Samira channel bay ku hadhay aniga iska soo qaaday ismay waan iska soo riday walaalaha channelka ku xiran fadlan hablaha kale walaalaheena booqada hoos baan ku soo qori doonaa biidnillah taala halka maartay comment-ka idin ku soo qori doonaa channelada magacooda iyo qaabka u raacaysan u baaraysaan haddaba aniguna challenge-kayga intaan sii raacaya weeyaan bacdooba aniga ismay igu soo reebtay oo qamandidoona bariiskan ku dirsan jiray iyadoo ay bariis igu soo dartay oo bariiskii ku soo kariyay haddaba aniguna labada hablood iga dambeeya waxa weeyaan koow inay wax hidiyo dhaqan meesha soo dhigaan waayo waxaynu ka hadlaynaa waa cunto hidiyo dhaqan Soomaaliyeed marka waa in meeshii lagu arkaa alool keentaya dhiil keentaya waxaad ku wadi subeeciyad keentaya boqor keentaya dhacla keentaya saddex qayd keentaya masaf keentaya waxaan ku koob nisbeedo caana lagu miistay keentaya aday ku jirta waxaad soo hesho joogeeda doonta ciirta ama caana lagu laalaadsan jiray lagu soo gadan jiray keentaya dambiil keentaya wax hidiyo dhaqan u bana baayidin ka rabaa si dadka dhalinyaradeena maanta qurbaha ku koraysa ay u arkaan waxaynu abiyo awow u lahayn hadii la haydmo waxa rajeenaya insha Allah taala ina idinku noqol yihiin daawanayana ka soo falcelin doontaan barnaamijkan Ramadaantaan ugu talagalay inaan insha Allah taala dhalinyaraduna ka faa'iideysato waayeelka xusuustii waxaan ku ka tagay ee dhaqankii waxaan ku aan bariyaha samayn ee yare ilaawena iyaga laftooda ay boorka dib isaga jafaan oo yiraahdaan qamandidiya masagadiya soortiya sarreenkiya canjeeradiya waxaan ku maasha Allah tabaaraka raxmaan waxa kala xusid mudan hada channelka Somali Cooking Culture dib u raacdaan nooc kasta maasha Allah hidiyo dhaqan cunto waan soo galiyay soorti baa ku jirta cambuuladii baa ku jirta waxa ku jira masagadii baa ku jirta de waxaad ku dhaxa ka qabaneen maasha Allah tabaaraka raxmaan caanaha garoolkaas loo sameeynaya ku jira taasina waa Somali Cooking Culture hadaan idin sheego maasha Allah waxa kale hablaha kalena waan idin soo qorayaa fadlan hal booqda channeladooda bal hadda iyaga laftooduna cilmi baa ku duugane cilmiga meel kasta laga soo barto insha Allah taala intaynu dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafno imkana waan idin ku dhaweynayaa halka qamantidii baa inoogu jirta oo soo xajimo maca bariiskeedu wata halkan waa duqoskii halkaana waa malabkii halkaana waa saliidii halkaana maasha Allah waa caanaheeni halkana waa aloolkeeni iyo dhiisheeniba maasha Allah isaga oo maca faraawilkii bay iska dhixiyaan oo maxaa loo kala saarayaaba qurux bayay naga dhaqan qurux badan idinkan idin dhiibayay insha Allah intaynu dib u kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh